afayeenka xisbiga mucaaradka wadani barkhad jaamac batuur oo halkan oo xarunta wadani warbaahinta kula hadlayay waxa uu dhaliilo kala duwan u soo jeediyay gudida xanuunka coronavirus ee Soomaaliland waxaanu sheegay in loo baahan yahay gudidaasi inay waqtigan iscasilaan waxa uu su'aalo kala duwan weydiiyay gudida waxa ugu dambeyntii ugu baaqay gudidaasi lacagaha ay hayaan ee 5 milyan ee dollar inay u qaybiyaan macallimiinta iskuulada iyo dadka danyarta ah gudidan qolada reer Burco waxa uu bixisay gudida matukatada go'aan kasta oo soo baxa waxa gudida asal u ah inay kula dagaalamayaan cibaadooyinka Allah su'aalo dhowr bartan markaa yaala su'aalaha dhowrka anagoo ka wakiilo mujtamaca Soomaaliland ku hadlayna afka iyo dareenka bulshada aan codkoodu meesha dheer gaaraynin anagoo ka wakiila toosinta iyo tilmaamida cidda mas'uuliyadda dalka haysa anagoo nadamqaysa muwaadiniinta dhayalka u dhimanaya anagoo nadamqaysa deeqaha la soo qaaday meel ay mareen aan la garanaynin waxaan doonaynaa inaanu bal weydiino nimanka gudida ee musalsalka maalayacniga ummadda u matalaya su'aalo dhowr 5 milyan oo 5 ambalaas laga iibin kari waayo macnaha qaranka ugu fadhidaan weydiinaya 5 milyan oo 5 magaalo dalka lagu gaari waayo macnaha qaranka ugu fadhidaan weydiinaya 5 milyan oo 5 cusbitaal umada loogu sameyn waayo macnaha qaranka ugu fadhidaan weydiinaya 5 milyan oo 5 uskajiin qaranka loogu soo iibin waayo macnaha qaranka ugu fadhidaan weydiinayna 5 milyan oo 5 dhakhtar oo ku takhasusay xanuunada inay ka hortagooda dunida lagaga soo kaxayn kari waayo macnaha qaranka ugu fadhidaan weydiinayna 1 milyan iyo badh sababta ku baxeen bal waxay tahay ummadda wali looma sheegin ma iyaga beer dhiyaamo qaatay oo masaariifsaday waxa meeshan yaala madaxweyne ku-xigeenka qaranka madaxweyne ku-xigeenku wuxuu madaxweyne u yahay uu matalaa gobolada Soomaaliland oo dhan matalaada dhabta ay madaxweyne ku-xigeenku uu leeyahay waa gobolka Awdal isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Awdal baa hadlay gobolka waxa hoos yimaada degmooyin ciida ka farabadan isuduwuhu wuxuu sheegay inuu ambalaaskii hospitalka weyn ee magaalada Boorama fadhiyo isuduwuhu wuxuu sheegay inaanay adeeg gaadiid oo ay haystaan ka gobol ahaan ayna jirin magaalooyinka Qolujeed Boon Xariirad Baki Lughaya Dila kuwayaalahaasoo dhani waxay hoos yimaadaan gobolka Awdal iyo gobolka Sanaag mas'uuliyadda ugu weyn ee qaybinta khayraadka gobolka gaarana cid ay saaran tahay waxa weeyaan magaalada Boorama bila ambalaasa 5 milyan waan hayaa lama garan karayo waxaan doonayaa inaan dib u xasuusiyo madaxweyne ku-xigeenka adoo matalaada gobolka Awdal haysta kaasi waa ambalaaskii oo jiiti ay ku qoran tahay oo hospitalka magaalada Boorama uu lahaa oo fadhiya qofka ku neef qabatooba magaalada Qolujeed ama Boon ama Dila matig baa lagu soo qaaday madaxweyne ku-xigeen haddii aad awoodi kari weyday inaad 5 milyan ee aad sheegaysay ambalaas aad ugu iibiso haddii aad awoodi kari weydo 10 sanood madaxweyne ku-xigeen qaran ahayd inaad baahida gobolka aad matalaadiisa leedahay aad gufayso ma waxaad awoodi kari weyday inaad mushaharkaaga ambalaas ugu iibiso ma waxaad awoodi kari weyday 80 gaari ee kala duwan electric cars ka gurigaaga ku xareysan inaad mid ugu deeqdo anu ma garan karayo luqadda Soomaaliga damiirka noocaas waxa lagu fasiriyo waxa la yiraahdo dadka suugayaan kan u dhaafay waxaan xisbi ahaan qabnaa anagoo shacabka Soomaaliland ka wakiila cod dheer iyo ku gaaban baan kula hadlaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudana madaxweyne gudidii aad magacawday way fashilantay waa gudida diiday hanti dhowrihii qaranku inuu galo oo lacagtu meesha martay la ogaado waxaana muuqda musuq baaxadle waa gudida 5 milyan baanu haynaa afka kale ficil ay qabteen muddada ay magacaabay yihiin ayna muuqan mudana madaxweyne intaan xaaladdu saan ka sii xumaan xisbi ahaan waxaana damqaya muwaadiniinta dhimashadoodu dhayalka u baxayso ilaahay baa dhimashada iyo nolosha baxaya laakiin asbaabta ku imanaysa idinka xukunka haya oo mas'uuliyadii haya
lamana eegan karayo aqlan wa sharcan wax la aqbali karayana maaha tallaabo inaad qaaddaa madaxweyne kuu eeg tallaabo inaad qaaddaa kuu eeg tallaabo inaad qaaddabaa kuu eeg oo ah inaad nimankaa ummadda ka hor dhaqaajiso guddi kale oo dalka iyo dadka u damqanaya oo daryeelaya dadka bukaankaana adib u magacaabo laba lacagta guddidana hayso ay sheegayso ma garanayo meel ay taalo guddidaa waxa la gudboon waxa cabanaya iskuulladii gaarka ahaa macallimiintii ubadkeenna iyo mustaqbalkeenna soo saarayay waxa cabanaya madarasadihii qur'aanka macallimiintii dhigayay oo 4 bilood ay xidhan yihiin iskuulladii oo kiradii lagu leeyay oo waxay meesha ay ku kireeyaan iyo macallimiinta waxay cunaan ay laayihiin mas-uuliyad baana dawladda ka saaran oo dugsiyada dawladdu ma aha mas-uuliyadda saaranee waa mujtamaca Soomaaliland oo dhan 5 milyan ay hayaan war dadka danyartana ha loo qaybiyo macallimiinta iskuulladana ha la siiyo fadlan iscasilo ummadda ka hor dhaqaaq Cabdiraxmaan Jumbo Star TV Hargeysa